Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharkan wuxuu ka hadli doonaa haddii alla idmo sidii loo soo celin lahaa haddii Facebookii lagaa qaato oo kale sidaan kusoo celin lahayn. Marka dhowr step baa loo kala qaadayaa way fara badan tahay mana sahlana laakiin stepskaan kala hormarinaynaa. Stepska kadib marka la kala hormariyo waa la kala qaadqaadayaa haddii tusaale ahaan passwordkaagii la bedelay maxaa xala okay passwordkii waa la bedelay haddii marka passwordkii la bedelay xalka lagaa rabaa noocan marka hadduu yimaado horta marka ugu horreysa waxaa muhiima in akoonnadiinu ay leeyihiin telephone leeyihiin haddaad u baahan tahay inaad ku shaqaysato you have to have phone number or email address waa in uu kugu xidhan yahay labadu waa inay ku leeyihiin recovery email address waa inay ku leeyihiin haddaa rabto inaad kusoo dirsatid waxaad samaynaysaa two factor authentication ayaad u shidaysaa waxaad soo gelaysaa iminka halkan markaad soo geshid kadib oo halkan aad timaado waxaad samaynaysaa waxa la yidhahdo bartan baad soo geli settingkaad ku dhufan settingka markaad soo gasho kadib baad waxaad tegaysaa security and login markaad soo geshid waa kan ayaad waxaad sii tegaysaa bartii ku taalo two factor authentication ka furo oo kusoo xidha markaa telefonkaaga kusoo xidho iminkaba waa saas weeye marka faa'iidadiisu number one so haddii keliya uu bedelay passwordkii waa caadi usernameka geli waxa kaloo dhan geli waxaad tirahdaa forgot passwordkii baa ilowday ileene intaa markaa dhammayso wuxuu kusoo saarayaa marka pagekii kale options buu ku siinayaa optionskaas waxa weeye in email address gelisid ama inaad gelisid telephone number haddii marka intaas iyo options kale ayuu ku siinayaa kadib wuxuu ku tusayaa profile picturekaagi ayuu ku tusayaa profile picturekaagi markuu ku tuso kadib wuxuu kaloo ku weydiinaya inaad hore ugu sii socoto haddaad email address haysatid iyo haddaad telephone haysatid kadibna uu kuu soo dirayaa recovery code haddii telefoonkaaga kugu xidhnaa kadibna password cusub baad samaysan kartaa markaa password cusub ayaad markaa samaysan kartaa oo aad ku geli kartaa marka sidaasaan iminka idin tusayaa waa qodobka koowaad weeye marka tusaalahani waa kan iminka emailkaas aynu gelinay kadib waxaan dhahaynaa forgot password ayaan leenahay kadibna wuxuu ku odhanayaa waxaad gelisaa phone numberkaagii ama email addresskii aad xasuusato oo meesha aad ku gashatay soo geli baa lagu odhanayaa marka ayaad gelinaysaa phone numberkaagii ama wixii aad garanaysay marka okay aan email geliyo email baan gelinayaa waayo search baan leedahay markaa search ayaan leenahay waa raadinaynaa hadduu mid jira uu yahay kadibna wuxuu yidhi email baanu kuu dirnay wuxuu ku odhanayaa security code ayaanu ku dirnay emailkii aad dalbatay markaa security code ayuu wuxuu ku dirayaa emailka markaa tala way kugu caddahayo waa inaad emailka haysatid haddii emailkii aad haysatid waa okay oo ninkii muu bedelin waxba muu bedelin ama qofkii waxba muu bedelin taasi waa taa weeye passwordkuun baa la bedelay waad soo ceshan kartaa hadduu kaas kugu xidhnaa marka qodobkaas waa the first point the second point baan eegaynaa marka okay hackerkii wuxuu bedelay emailkii buu bedelay emailkii aad ku geli lahayd buu bedelay haddii marka taasi ay dhacdo waxaad samaynaysaa haddii uu hore u socday oo uu markaa emailkii ku xidhnaaba uu iskaba bedelay oo mid kale uu qaatay maxaa la samaynayaa forgot password baad ku dhufanaysaa kadib markuu soo helo profilekii uu soo helo hore ugu sii soconaysaa laakiin waxaa ku dhufanaysaa badhanka ay ku taalo no longer have access to this umaba haystaad leedahay kadib waxaad gelinaysaa recovery optionkii ayaad gelinaysaa marka tusaale ahaan waxay ku xidhan tahay haddii Facebook qaraamiya uu yahay oo kale waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo security questionka aad ku xidhay tusaale ahaan maxaad jeceshahay tusaale waxaasuu dadka weydiin jiray cuntadaad ugu jeceshahay magaceed waxaasoo dadka la weydiin jiray laakiin Facebookyadan dambe hadeer waxay leeyihiin waxa la yidhaha trusted contacts dad baad ku xidhanaysaa asxaabtaada ama asxaab walaalka ama dad baad ka dhiganaysaa hadhowto si aad ugu soo recover garaysato soo garamaysid kuwaasaad marka magacyadooda gelinaysaa kadib markaas wuu kuu shaqayn doonaa waxaa laga yaabaa xal buu leeyahay
laakiin hadduusan trusted contactsna ku xidhnayn ka waran. So trusted contactskaas ayaan idin fahansiin doonaa. So kani laba kugu xidhaya waa inaad security questionka xasuusatid, waa ina kaloo trusted contactskiina aad xasuusatid. Labadaas haddii lagaa doonaya. So marka halka soo gashid settingkaaga oo dhinaca aad kasoo dooratay security unlocking waa meeshan ku jirnay marka horeba. Halkan aad ka arkaysaa wuxuu ku leeyahay 3 qof ilaa 5 qof ka dooro. Ma garanaysaa oo trusted contacts aad dooro si hadhowto markuu kaa xidhmo aad u furatid oo kale. Kaasaad dooranaysaa si hadhow markuu kaa xidhmo oo kale aad u furatid. Marka kuwa lagu sheegayo waa kuwa, laakiin hadduu Facebook qaraami yahay oo qof bir hore la sameeyey 10kii iyo 2012kii iyo 2013kii iyo 2009kii la sameeyey, macnaheedu waxa weeyaan wuxuu security question ayuu kaa doonayaa. Marka hadda trusted contactska waa u samaysan kartaa. Saaxiibadaayoo kale 2-3 qof, walaalahaayoo kale baa ku xidhan kartaa. Adeerada, aabaha, maybe someone else oo hadhow ku weydiiyo magacyadooda oo hadhowto aad gelisid markaas. Waxaa ka warantaa hadduu labadiiba bedelay ka waran. Emailkiina wuu bedeshay, passwordkiina wuu bedeshay. Labadiiba wuu bedeshay. So waxaa lagaga baahan yahay iminka mobile number ama email address baa lagaa rabaa. Labadaas ayaabuu u baahan yahay. Iminka marka hadday taasi dhacdo waxa weeyaan Facebooka tag kadibna forgot password baa dhahaysaa sida haddeer oo kale. Kadibna waxaad gelinaysaa usernamekii iyo emailkii. Facebook markuu profileka ku tuso recovery optionska ayaad sii gelaysaa. Mobile number optionka ku dhufanaysaa. Mobile numberkii baad gelinaysaa. Text ayuu kuu soo diraya. Haddii taasi ka waran aysan dhicinba, habka kale lagu soo celin karo kanoo kale waxa weeye emailka tusaale ahaan. Haddaba ogaada Facebook marka tusaale ahaan emailkii la bedelo, email buu kuu soo dirayaa. Emailka kuu soo diro wuxuu ku leeyahay waxaa la bedelay emailkii ku xidhnaa accountka. Kadib ma adigaa qofkani wuxuu ku soo dirayaa marka ma adigaa mise ma aha. Waxaa leedahay aniga ma aha. Ma aniga ma aha, not me baa leedahay. Waad ku dhufanaysaa. So mar walba emailkaaga la soco Facebook uu kugu xidhan yahay waa inaad la socotid oo aad ogaatid mar walba emailkuu soo dirayo. Farsamadaa waa lagu soo celiyaa oo markuu allaale markuu ku soo diro haddaad emailkii weli haysato uu kuu soo diro ku dhaho soo celi, taasoo kale waa lagu soo celin karaa. Haddii marka email ID-gii la bedelay ka waran, maxaad samayn kartaa? Wuxuu kuu soo dirayaa oo kale message buu kuu soo diraya wuxuu ku leeyahay accountkaaga secure garee. Kadibna halkaa kusii dhufo passwordkiisa ka bedel saas oo kale. Facebook wuxuu kaloo ku siinayaa badhamo kale oo security options kala duwan laftooda uu ku siinayaa. Tusaale ahaan wuxuu ku odhanayaa markaas oo kale haddaad geli kari weydo government ID-gaaga soo dir ama passportkaaga soo dir. Kadibna haddii aad u dirto waa inaad u dirtid. Mar walba waa inaad u dirtid. Haddaad ku qabsato qofkii oo aad ku warwareeriso waxay ku odhanayaan government ID-kii soo dir ama passportkii soo dir. Kuwaasoo dhan bay ku weydiinayaan. Way eegayaan kadibna way kusoo jawaabayaan. Optionka kale waxa weeyaan inaad birth date-kaaga gelisid. Maalintaa dhalatay inaad gashatid ayuu doonayaa. Optionka kale waxa weeyaan saaxiibadaadii oo kale ayuu ku weydiinayaa. Friendskaaga inaad recognize garaysatid ayuu ku weydiinayaa. Saa daraadeed waxyaalo badan oo muhiima ayaa halkan ku eeginaa. Facebook friendskaaga waa inaad qarisid. Facebook friendska dadka kugu jira maaragtay only me ka dhigo. Ka qari dadka kale because hadhow haddii kale waxaa dabageli kara oo soo barbaaran kara dadyow kale oo hackers iyo waxaas leh. Farsamadani marka waa farsamo fudud weeyaan ood wax ku soo ceshan kartaan. Labadan farsamo haddii ka waran aanay waxbaba jirinba oodan waxba haysan, hababka dambe laakiin way ka khatarsan yihiin hababka kale. Marka casharka xiga ayaan ku soo eegi doonaa haddii labadiiba aan lagaa bedelanin hababka dambe ayaan ku soo qaadan doonaa haddii alla idmo qaybta labaad. Asalaamu calaykum.